Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Kusoo dhawaada cashar kale oo cusub. Dhageystu ma isku aragtay xididada lugta oo kusoo barara sida sawirka kore ka muuqda, taasoo ah cillad ku badan bulshada, khaasatan dumarka. Ma dareentaa in xididadan ay sii kordhayaan mar walba marka ka dambeysa? Haddii ay jawaabtu haa tahay, ka faa'iidayso casharkan lana wadaag bulshada. Magacaygu waa Dr. Mahdi, waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka East End. Cilladan waxaa loo yaqaanaa bararidda arooriyaasha lugta, afka qalaadna lagu dhaho varicose veins. Waxay cilladan timaadaa markii xididada arooriyaasha kore ee dhiigga ka soo celiya qeybaha hoose jirka ay awoodi waayaan in dhiigga kor u dallacaan, taasoo keenaysa in dhiiggii dib ugu laabto, kadibna keenaan barar iyo xanuun. Hadduu dib u laabashada dhiigga ay joogto noqoto, waxaa dhaawac gaara haniyeyaasha xididka ku dhex jira, kaasoo Alle ugu talagalay inay ka hortagaan dib u laabashada dhiigga. Hadday taasi dhacdana, bararka xididadan joogto ayuu noqdaa. Badanaa cilladan waxaa lagu arkaa hooyooyinka uurka leh, weliba bilaha dambe markuu culeyskoodu badan yahay, xilliga dhalmo-deyska, dadka istaagoodu badan yahay, dadka cayilan, iyo qoysaska firka u leh cilladan. Cilladan waxay keentaa in xididadu bararaan, midab yeeshaan, mararka qaarna ay dillaacaan, taasoo keeni karta dhiig-bax siyaada ah. Cilladan waxaa lagu gartaa aragti, laakiin way dhici kartaa in baaritaan lagu diro sida ultrasound oo lagu ogaanayo qulqulka dhiigga xididada bararsan, ama sawir arooriyaasha u khaas ah in lagu saaro, kaasoo loo yaqaano venogram, waxaana lagu ogaadaa haddii xinjir ku samaysantay xididka arooriyaha dhexdiisa. Badanaa cilladan dhib weyn ma keento, laakiin waxaa qofka lagula taliyaa inuu istaagga yareeyo, miisaanka dhimo, uuna gashado iskaalshooyinka ama sharabaadka xididada celiya sida sawirka ka muuqda. Waxay iskaalshooyinkan ku caawiyaan xididada in dhiigga kor u dallacaan, bararkana yareeyaan, waxayna ka hortagaan in xidido cusub samaysmaan. Haddii intaasi wax tari weyso, ama xanuun siyaada ah yimaado, ama dhiig-bax soo laabto, waxaa qofka loo sameeyaa qalliin lagu xirayo xididada bararan qaarkood, ama in la qalajiyo, taasoo loo yaqaano sclerotherapy, ama in laser lagu toogto si loo xiro xididka. Haddii aan la daaweyn, cilladan waxay keeni kartaa dhiig-bax, dhiig xargag, ama boog hadhow infekshan qaadi karta. Halkaas ayaan kaga baxaya casharkan. Wixii su'aalo ah noogu reeb qaybta commentiska ee muuqaalkan. Waana mahadsantihiin.